dib u dhiska wadadan isku xirta isgoyska Bar Uwax iyo isgoyska Ifka Xalane ayaa qayb ka ah dadaalada maamulka gobolka Banaadir ee ugu jiro horumarinta magaalada caasimadda iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha waxaana dhismaha wadadan ay ahmiyad weyn u leedahay bulshada ku nool degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir waxa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Warta Nabadda iyo injineer dhisaya wadadan wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha iyo duqa magaalada Muqdisho ayaana si wada jir ah u dhagax dhigay wadadan gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Seyne Maxamuud Warsame Xaabsi iyo injineer Cabdikariin Axmed Shooriye agaasimaha qorsheynta magaalada ayaa si isku mid ah u sheegay in wadadan ay halboolo u tahay bulshada ku nool degmada Warta Nabadda sharaf weyn bay inoo tahay shacabka degmada Warta Nabadda anigoo ku hadlaya iyo madaxdoodaba in aan maanta jaaniskan u helno arrintan oo ah arrinta dib u dhiska dalka madaxda qaranka ka wada go'an tahay sidii bilicdii iyo kala dambeyntii iyo nidaamkii dawladnimo dib loogu soo celin lahaa wadadan stadium road waa wado muhiim ah waa u jeedaan horumarka ka socda ee magaalada Muqdisho gaar ahaan ay wadaan madaxda gobolka Banaadir wadadan cabirkeeda waxa waa 1.2 kilometer widthkeedana waa 10 meter saddex leeyaro laami la saari doona insha Allah taala waxayna ku dhamaan doontaa muddo bil ah sidoo kale u jeedaan leerarkeedana waxa hore u shaqeynay tan waxay kamid tahay qayb ama horumar dib u dhiska ay ka wadaan gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir dhanka howlaha guud Aadan Sheekh Cali Fiidow ayaa sheegay in dardargelinta dib u soo celinta bilicda caasimadda ay qayb ka tahay dhismaha wadadan kamid tahay wadooyinkaanu dardargelinta maamulka gobolka Banaadir iyo bilic soo celinta oo gobolka Baryahan uu ku waday oo gudoomiyaha gobolka uu horkacayo wadooyinka magaalada Muqdisho oo burbursanaa iyo dib loo dhisaayo ayay kamid tahay waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda wadooyinka sidaan oo kala ah iyadan u burbursan in la sameeyo magaalada Muqdisho ay ku soo noqoto sidii ahaa jirtay waayo hore iyo bersamaadkii ay ku soo noqoto quruxdeedii wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye ayaa ugu mahadcelisay maamulka gobolka Banaadir dayactirka wadadan oo ah stadium Muqdisho ayadoo sheegtay in loo baahan yahay in si wada jir loo wada qayb qaato horumarinta caasimadda Muqdisho wadana gudoomiye aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maalmaha dib u dhiska garoonka stadium Muqdisho uu socdo in ay wadadan oo 1 kilomitir iyo bar qiyaastii dayactirkeedana uu qayb ka yahay oo garoonka kaliya uusan ahayn gudihiisa waxa la qurxinayo iyadoo gobolka Banaadir horumarada uu ka sameeynayo dhinaca wadooyinka nadaafadda iyo soo nooleynta waxyaabihii dadka Soomaaliyeed rajadooda soo celinayay inta dalka gudihiisa ku nool iyo inta kale ee dibadaha ka fiirsanaysaba Soomaaliya maanta waxaan ku jirnaa marxalad horumar iyo dib u dhis gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Iriisow ayaa sheegay maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay dayactirka iyo dib u dhiska wadooyinka burbursan ee muhiimka u ah horumarka caasimadda ee magaalada Muqdisho muddo waxaan wadnay dib u dhiska caasimadda wadadan waa wadadii sagaalaad ee laami ah ee caasimaddan laga hirgeliyay muddo sanad iyo bar ah waa dareemi kartaan sida horumarka uu mar walba u socdo mar haddii dawladdii shacabka aan haysano madaxweyne Farmaajo oo hormuud noogu yahay iyo ra'iisul wasaare Khayre naga go'an horumar iyo dib u dhis iyo anagoo ka fikirna dalkan oo aan horumarka uu istaahilo la gaarsiiyo Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho